kalsooni dhaba waan ku garab taaganahay geesiga dhalo geestaa kaa joogno godoloola haba ka sugin karaamada waa horaan kugu gardaadine karaamada waa horaan kugu gardaadine kol walba nagahoo kalgacal iyo kalsooni dhaba waan ku garab taaganahay geesiga dhalo geestaa kaa joogno godoloola haba ka sugin karaamada waa horaan kugu gardaadine karaamada waa horaan kugu gardaadine kol walba nagahoo kalgacal iyo kalsooni dhaba waan ku garab taaganahay geesiga dhalo geestaa kaa joogno godoloola haba ka sugin karaamada waa horaan kugu gardaadine karaamada waa horaan kugu gardaadine kol walba nagahoo kalgacal iyo kalsooni dhaba waan ku garab taaganahay geesiga dhalo geestaa kaa joogno godoloola haba ka sugin karaamada waa horaan kugu gardaadine karaamada waa horaan kugu gardaadine kol walba nagahoo kalgacal iyo kalsooni dad wala og yahay wuxuu damiciisu yahay dalka inuu xukumo wuxuu damiciisu yahay dalka inuu xukumo inuu Soomaali idil daadashuu rabaa inuu Soomaali idil daadashuu rabaa daruuraha deris la noqonu yar doonayaa daruuraha deris la noqonu yar doonayaa halyay qaran weeye dabarani waa hurmuud halyay qaran weeye dabarani waa hurmuud hoggaan la hubo wadaan heesa ku sidnaa hoggaan la hubo wadaan heesa ku sidnaa adaan halabuurka yaga kugu hagarbaxnaa adaan halabuurka yaga kugu hagarbaxnaa bulshada ceel buu aday calamo ku ruxeen bulshada ceel buu aday calamo ku ruxeen kolkaad carradaada timi waanu ciilbaxnaa kolkaad carradaada timi waanu ciilbaxnaa adaan ciise badane cududaada aanu nahay adaan ciise badane cududaada aanu nahay codkarka Soomaali aan cidi helayninow codkarka Soomaali aan cidi helayninow cajiiba taay ceel buu ku soo dhawow soo dhawaada waxaanu soo dhawaynaynaa waftida ballaaran uu hogaaminayay afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Yuusuf Jaamac soo dhawaada sida nabadoonku sheegay waa gurihiinii waa magaaladiinii waa idin sugaysay waxa idin soo baxeen oo yaroo weyn dibadda ugu soo baxeen oo idin soo dhawaynayaan waa idinka soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada laa furan ku soo dhawaada gurigiinnii weeye waa kii aad madaxda u ahaydeen soo dhawaada mar labaad hadda soo dhawaada waa meeshiinnii waa meeshii idin sugaysay waxa weeye waa idin sugaynay waana idin soo dhowaynay waana ku mahadsantihiin insha Allah waxay la tahay dadkii gobolka madaxda u ahaa oo u dhaartay baa tihiin waxa laala waxa gobolka ula socoteen iyo wixii aan noo wadeen iyo wixii waraysiiba insha Allah biidnillaahi karim waa iska waraysanayna aad baanu idinku mahad celinaynaa wafti nooca kan oo kale taa oo Puntland nooga timaday dhaweed maba arag taasna waxa weeye salaan loo had baanu idinku siisiinaynaa waxaan soo dhawaynaynaa dhammaan yuhuudda noo timi oo ugu horeeyo Jaamac Yuusuf Jaamac iyo inta la socota marka intaas waan soo dhawaynaynaa waana sugaynay waase naga raageen marra waaxid waa naga raageen waase soo dhawaynaynaa waana lala xisaabtami doonaa insha Allah waa idin soo dhawaynay waana idin ducaynaynaa in Ilaahay nabadgelyo kiino u kariyo nabadgelyo idinku celiyo lukaad ka timaadeen
dembigeenana allaha dhaafo waa maalin ciid waa maalin khayr qabta marka waa soo dhowayntii tanu iswaraysigii iyo wadahadalkii iyo wadaxaajoodkii iyo xisaabtankii waxay la tahay waa inoo damayaa jaamaca yuusuf jaamac iyo odayaasha weheliya guurtida ah barwaaqada iyo iidkaanu ku soo dhawaynaynaa waxaanu ku soo dhawaynaynaa magaaladiinni iyo dalkiinni iyo degaankiinni oo dooga iyo dhirta cagaarka oo quruxda badan waynu maanta hoos joogno ilaahay baa mahaddaa iska leh iyadoo abaara baynu meeshatan isugu iman jirno indhuhuna gubanayaan maantana rays baynu dul joognaa nabadgelyada iyo barwaaqadana ilaahay baa iska leh oo mahaddaa iska leh bacda salaan kelmadda noo taalla annaga waxa weeye waa mahadcelin bulshaweynta reer ceelbuh oo isku duuban soo dhowaynta aad nagu soo dhowayseen iyo qalbiga furan iyo wejiga furan iyo gacmaha furan inaan idinka mahad celinno weeye halkan waxaa yaallaa iminka waa idiin mahad celinaynaa waxaan leenahay ilaahay ha idinka ajar siiyo ilaahay ha idinka abaalmariyo qalbiga furan iyo soo dhowaynta aad soo dhowayseen wafdidan uu hogaaminayo afhayeenka madaxtooyada dowladda puntland jaamac dabaraani iyo maamulka gobolka iyo xubnihiisa kala duwan waxaan leenahay fadhi baan isku waraysanaynaa waxaan sidno iyo waxaan qabno iyo waxaad qabtaan insha allaahu fadhi baan isku waraysanaynaa si fiican baanna isu waraysanaynaa waa idiin mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba runtii waa mahad celin kelmaddayadu aan u mahad celinno bulshada reer ceelbuh sida milgaha iyo sharafta leh ay noogu soo dhoweeyeen magaalada ceelbuh waxaan leenahay allaha idin sharfo wixii wara kolley waa iswaraysanaynaa awalna ma kala war la'ayn wixii insha allah socodkayaga iyo wafdiyadatan oo maaragtay afhayeenka aanu kula soconnay warana insha allah fadhi baan isku waraysanaynaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba waa idinka mahad celinaynaa soo dhoweynta qiimaha badan sharafta badan loo ku soo dhoweeyey darista quruxda badan ee maanta magaalada ceelbuh aad iyo aad baa u mahadsantihiin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin afhayeenka madaxtooyada dowladda puntland guddoomiyaha degmada badhan mas-uulka cashuuraha beriga cali cabdulaahi cabdi ibraahim maayarka iyo guddida magaalada nabadoonnada culamaauddiinka aqoon-yahanka hooyooyinka ciidamada qalabka sida saxaafadda dhammaan bulshada meesha isugu timi intaan magacaabay iyo intaan ka tegeyba cid walbi mansabka ay leedahay waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kelmaddayadu sida la sheegay waa mahad celin waxaa sharaf noo ah oo guul noo ah oo niyad furni iyo qalbi wanaag noo ah sida aan loo kala harin ee maanta naloogu soo dhoweeyey magaalada ceelbuh waxayna tusinaysaa guulaha iyo horumarrada aan ka filayno ceelbuh inay gaadhay inaannu annaguna dunida iyo dadka u bandhigno ayna iyagu muujiyeen aanayna ahayn waxaannu annagu la nimiye waxa idinka muuqta ayaan insha allaahu guusheenna qayb ka noqon doona insha allah waxaan leeyahay hadalku hadda waa uun soo dhowayn dhammaantiin waxaannu idinka mahad celinaynaa sida quruxda badan oo weliba aad u qaybsateen shaqada oo hiddiya dhaqankii dhallinyaradii calankii dowladda puntland iyo kii soomaaliya iyo inaad tihiin dad reer puntlandna kana sii ah soomaaliya inay aad ku caddihiin ay idinka muugato dowladda puntland iyo dowladda soomaaliya iyo dhammaan ummadduna ay arkayso oo indhahooda ay ku dhaahanayso waxaan caddaynaynaa maanta sida aad idinku isu caddayseen baan annaguna caddaynaynaa guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha degmada baran mudane axmed timir guddoomiyaha magaalada ceelbuh hoggaanka dhaqanka odayaasha waxgaradka haweenka saraakiisha ciidamada ee amniga sida wanaagsan u sugayey wiilasha iyo gabdhaha quruxda badan ee hidiya dhaqanka ku labisan iyo qof kasta oo halkaan nagu soo dhoweeyey iyo warbaahinta saaxiibayaal walaalayaal
mudanayaal iyo marwooyin aad iyo bogaadin iyo wanaag ayaan idiga mahad celinaynaa soo dhowaynta oo dabcan wafdigana uu nagu heliyey maamulaha cashuuraha beriga gobolada guurti cali iyo dhammaan xubnihii kale nala socday si weyn baanu idiga mahad celinaynaa aniga Ceelbu taariikh gaar ah igu leedahay haddaan hadda imina haddii la dhawaa soo daahday waa gar laakiin waa magaaladii aan ka bilaabay nolosha markii la iga keenay baadiye waa magaaladii aan wax ku bartay waa magaaladii aan kubadda ku ciyaaray waa magaaladii aan ciyaalka xaafadda ka mid ahaa waxaan ku faraxsanahay muddo badan kadib inaan maanta Ceelbu imaado oo weliba iyadoo dadka reer Ceelbu ay sidan ii soo dhaweeyeen waxay gelinaysaa sharaf waxay gelinaysaa milgo waxay gelinaysaa awood dheeri ah oo aan maanta idiga arkay Ceelbu waa magaalo weyn oo weynaatay dadkeedu sidee u abaabulan yihiin sida uga shaqeynayaan nabadda sida uga shaqeynayaan horumarka sida ay uga shaqeynayaan arrimaha bulshada sida ay awood dheeriya u siinayaan inay magaaladan horumariyaan taasi waxay cadeynaysaa inay suurtagal tahay aniga iyo wafdiga la socda iyo xubnaha inagu metela siyaasadda dawladda inaan nagala shaqeyn kartaan inaan Ceelbu geeyno meesha istaahisho waxaan u soconaa inaan ka shaqeyno inaan helno adeega dawliga ah oo intii idiga dhimanna la dhammaystiro sababtoo ah madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Deni siyaasaddiisu waxay ku dhisan tahay tayeyn iyo tiigsi tayeynta ay qayb ka tahay adeegyada dawliga ah oo dadka loogu geeyo meel walba joogaan geed hoostina haatee intaan halkan joogno waa kulmi doonaa waan iswaraysan doonaa waan wada hadli doonaa gooni iyo gaargaar baa isku arki doonaa waxaana ka wada shaqayn doonaa si wada jir ah sida magaalooyinka kale aan soo marnay in waxyaabaha baahiyaha ee deegaanka ka jirana aan gudbino wixii ay suurtagal tahay marka inaan wax ka bilownona aanu ka bilowno intaanu joogno idinkuna aad nagala shaqaysaan horumarkiina nagala shaqaysaan Ceelbu ka qurux badan mid aan maanta aragno waxaan rabnaa hooyada Soomaaliyeed hooyada reer Puntland wiilka gabadha dhalinyarada qof kasta oo reer Ceelbu halka jooga in adeegaadka ka dhiman loo dhammaystiro waxyaabihii uu helayna loo horumariyo adeegyada waxbarashada caafimaadka amniga iyo kan maamulka degmadaba inaan wada jir uga shaqeyno waxaan ku faraxsanahay inaan arkay dhalinyaro badan oo reer Ceelbu ah oo mar hore ugu dambeysay oo halkan jooga oo muujinaya sida ay u iimaansadeen dhulkooda inay ka shaqeeyaan dadkooda la joogaan xoogooda aqligooda iyo xirfadooda ay galiyeen horumarka gobolka kuwaas ayaan garab taaganahay kuwaas ayaan la shaqeynaynaa waxaan la shaqeynaynaa wiilka dhalinyarada ah iyo gabadha dhalinyarada ah ee ka shaqeynaya horumarka gobolka hogaanka dhaqanka ee ka shaqeynaya wanaaga odayaasha iyo guurtida talinaya oo ku talinaya dadkaan inay horumar la mid ah magaalooyinka kale ay helaan kaas ayaan anigu idigu metelaynaa kaas ayaanu idinla shaqeynaynaa gudoomiyaha gobolka idinla jooga dadkii oo dhan way idinla joogaan sigaara waxaan ugu mahad celinayaa gabdhaha reer Ceelbu sida ay soo dhaweeyeen sida ay suugaanta wanaagsan igu soo dhaweeyeen sida ay halkaas u taagnaayeen maanta dhan dadaalka ay ku bixiyeen haweenku waxa la yiri markii dalku uu burburay oo uu soo kabanayay doorka ugu badan haween baa qaatay dhismaha dawladda Puntland oo hadda inta ay jirto aad ogtihiina waagii hore odayaashu markii dhidibada dhigayeen kaalinta ugu muhiimsan haween baa qaatay isla haweenka laftigoodana waxaan rabnaa inay nagala shaqeeyaan horumarka nagala shaqeeyaan adeegyada dawliga ah nagala shaqeeyaan magaaladan sidii aan uga dhigi lahayn mid kamid ah magaalooyinka tusaalaha u noqota Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya maalinba meel bay joogtaa
maanta idinka ayaa iskale mustaqbalka maanta idinka ayaa go'aansan kara horumarkiina maanta idinka ayaa nagu garab istaagi kara maanta idinka ayaa samayn kara sawirka birita u ekaanaysaan sidaasi darteed waxaan rabnaa inta halka joognona in lala fududeeyo waxyaabaha noo qorshaysan marka aan tagnona intana la ilaawin in lagula xisaabtamo oo anaga iyo gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo xisaabiyaasha iyo saraakiisha kale ee dawliga ah ee hay'adaha dawliga ee kala duwan ee Puntland idigu metela inaad kala shaqaysaan wargelisaan baahiyaha jira sheegtaan wax walbana markaas aad ku daba gashaan si loo fududeeyo waxaan rabnaa inaan ka wada shaqeyno ceel buu qurux badan oo leh guri degmo ceel buu qurux badan oo leh maamul degmo ceel buu qurux badan oo solar leh oo habeenkii ifaysa ceel buu qurux badan oo xaafadaheedu ay leeyihiin towbalaan inta inaan nagala shaqeysaan baan rabnaa wada jir ayaan wax ku wada gaari doonaa dawladnimadu waa shacabkuna waa dawladda haddii idinla shaqayn gudoomiyaha gobolka iyo mas'uuliyiinta magaalada madaxda idigu ah iyo waliba kuwa heer gobol iyo kuwa degmada baran iyo mas'uuliyiinka kale idigu hareeraysan way adkaanaysaa inay horumartaan waxaan idin dardaarmayaa inaa xoojisaan midnimada inaa ku far adeegtaan nabadda iyo xasiloonida waxaan jecelahay inaan kulamada dambe ku wada hadalno si toos ah aan isweydiino aan xisaabtanno maxaa baahiyo ah sidee u kala muhiimsan yihiin sidee u kala gudbinaa sidee u kala qorsheynaa taasna qayb ay ka tahay socdaalkeena aad iyo aad baan idigu mahadcelinayaa waxa ay tusteen inaa idin jeceshihiin anigana waxaan idin tusayaa in idin jecelahay aad iyo aad baa mahadsantihiin